بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا جنرال كينا كينك CCY vlog and films. waxaad kala socotaan barnaamijyo kala duwan oo qaybaha kala duwan ee bulshada sida ay u egyihiin isugu jiro haddii ahaan lahayn wacyigelin iyo xiisooyin waxyaabaha entertainment-iga la isku dhaho. waxaan ka codsanayaa haddaad janalkan ku cusub tahay inaad fadlan subscribe saarto, like, share, comment saaxiibada kalena la wadaagto wixii aad halkan ka faa'iido oo aadan noqon bakhiil. Jimco wanaagsan. runtii maanta waxaan halkan u soo istaagay inaan ummadda Soomaaliyeed ugu yaraan aan iraahdo bal meesha dhibta iyo mashaqadu marayso walaalahan Soomaaliyeed deegaanada webiga maro ugu daran tahay magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan in la gargaaro oo la caawiyo oo aan isugu tagno oo xiiladeena iyo xooggeena intaan farsamo heli karno aan isugu geeyno Ilaahayna aan u barino in musiibadaas Ilaahay ka dulqaado. arrintaas iyada aan u soo istaagay nooc sadaqada kamid ah noqonaysa markasta ay ummadda in la gargaaro oo sadaqa si caam la isugu yiraahdo. makaan islaam marka laga hadlayo wax bixinta waxa kaliya ee muhiimka waxa waa qofka bini'aadanka ahi nafta sideeda badanaa wax bixista ma jeclo, laakiin ina wax bixisaahi kayd account saving ku ah aan waxna isdaba maraynin ama aysan waxba isbedelaynin ay noqonaysaa. sadaqada marka laga hadlayo tudfi ul khadiya sida biyaha ay u damiyaan oo u baqtiyaan maxaan ku raahdaa dabka ya dambiyada oo kale ay sadaqada maxaan ku raahdaa ay sheegayda laftirkeeda u baabi'isa. bixinta shay kamid ah Ilaahay intuu doono laba u laaba. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. wax bixinta laftirkeedana manad sheegasho iyo galad sheegasho inay noqoto maasam waxa laga yaabaa xilliyadan adag darteed in musiibadan hadana shakhsiyaad iyo dad gaar ah loo saaro laga yaabaa ama qofka xataa laftirkiisa isagoo wax bixinay maxaan ku raahdaa oo hadal hadana si raaciyo oo wixiisa uu iska buriyo lama rabo. qofka waxa la rabaa moogtahay qawlun ma'ruufun wa maghfiratun khayrun min sadaqatin yadba'uha adan soo kan Ilaahay laha. marka lama rabo eeda laftirkeeda marka wax bixiso inay kaasi raacdo mushkilad kale oo dadka maxaan ku raahdaa way sanadkaas waxaan u dhacaan xisan u dhacaan in la lama rabo. dhacdooyinka masaa'ibta ama dab meel ka kacay ama biyo meel ku dhuftay ama duufaano magaalooyin Mareykanka kamid ah ay u baaba'een oo dhawaan dhacdooyinka riboodada la soo tabinaya ogtihiin dhul dhamo kaymaha xataa inay ku baaba'een oo adduunka xataa intiisa kale uu iska kaashan lahaa sida arrimahaas oo dhan loo badbaadin lahaa ama loo dhimin lahaa. macnaha waxyaabaha marka naturally ka duwan waxa bini'aadamka uu la dhilgareeyo waxaas cid gaar ah oo loo tiirin karo oo loo dhihi karo waxa sidaas maxay u sameeyaan ama sidaas maxay u soo noqdaan maxaa si gaar ah in loogu eedeeyo maamul iyo nidaam system ama midkii federaalka ha ahaado ama kii dawladda dhexe xataa laftirkiisa ha ahaado wax macnaha oo gaar ma sameynayso. muhiimadda macnaha waxay tahay maanta waxa aad la baxdo adiga ugu yaraan hadal wanaagsan inaad tiraahdo على الأقل dadka niyada uga duceyso. waxaasna waxa laga rabaa inay ikhlaas ka noqdaan Ilaahay dartiisa sheekadaas ka taa oo aysan wax kale ka noqon. marka waxaan ku taranayaa ummadda Soomaaliyeed inay caawiyaan inay gargaaraan. waxaan fursadan uga faa'iideysanayaa walaalaha Soomaaliyeed meel kastoo adduunka joogaan u istaagay inay u gurmadaan walaalahood ku dhawaataysan Beledweyne si gaar ah bulshada ku dhaqan Puntland oo runtii dadka Soomaaliyeed intooda kale maxaan ku raahdaa ay sheeg tusaale fiican u ah markay noqoto arrintaas iyada ah. markasta ayna dhacdooyinka Soomaaliyeed waa weyn markaan anagu maqalno dadka hal doorada oo ay ahaayeen bixinta ama abaabulka marka laga hadlayo iyadoo si guud adduunka ama meelaha Soomaaliyeed ku nooshahay xilqankaas uu ka jiro oo dadka Soomaaliyeed loo gargaarayo. tusaale ahaan dareenkana markay noqoto xadiidku wuxuu ahaa kamathal al-jasad al-wahid idha ishtaka minhu 'udhun tadaa'a lahu sa'ir al-jasad bisar al-huma. marka laga hadlayo dadka muuminiinta ah sida ay isugu xiran yihiin fi tarahum matacaaduf matawaadihim kamathal al-jasad al-wahid marka la lahaa. marka waxa la rabaa walaalka qayb ka maqan jirkaaga oo halkaas jirto waaye dhibka way haysataa ama dhibto way haysataa sidee ugu gargaari karnaa. that is the question la rabo inaad isweydiisaa mar walba. markay ugu fiican tahay qofka walaalka ama walaasha aad ku saacido inaad ugu yaraan niyad uga duceyso oo aadan wax kala dhihin
oo dhib kale uusan meeshaas ka jirin cala aqal si guud iyo si gaaraba waan idin mahad celinayaa dadaalkeena halkaasaan kasii wadno cid kasta oo arrintaas isku xilqaantane aad adiguna ku tuhmayso maxaan ku rahdaa ii sheeg waxaan ku rahdaa arrintaa iyadahay qadiyad sax ay ka tahay in la caawiyo dadka ayagana la aaminay dadkaas inay u adeegaan la aaminay waxyaabaha laga kabsan waxaa ka mid ah haddii waxyaaba ummad ilaahay oo dhibaataysan loogu talagalay wax dugsiyo iyo malcamado quraan iyo masaajid loogu talagalay ay noqotaa inaa waxaas qashi ku samaysa ama aad wax isdaba mariso waxaas waxay noqonayaan wax markasta ay kugu yaallo calaamad kugu taalayaan kaa harina noqon doontaa marka idinkana maadaama aad isxilqaanteen niyadiina wanaajiya niyad fiican ilaahayna waxaan idinkaga baryayaa inaad ajri xasanaad ilaahay idinka siiyo abaalkaas runtii idinka annaga abaalkiina ma gudi karna laakiin ilaahay unbaa abaalkiina gudi karo guntii gabagabadii beledweyne magaalo qurux badan runtii ogaalkayga intay tahay magaalo for my life aan 7 camal soo joogay magaalo qurux badan ay ahayd runtii waxaan u rajeynayaa in ilaahay ummadda halkaas ku dhaqan oo dhan maxaan ku rahdaa ka badbaadiyo duruufahaas ay la macaamilayaan waxaan rajeynayaa in tantii ugu dambeysay uu noqon doonto insha allah aad u mahadsantihiin dadaalkiina halkaas ka sii wada sadaqadana arrin fiican oo muhiim ah waaye dadkaasna dadkeena oo naga maqan waayo qof kasta oo ka qayb qaatana aad u mahadsan yahay muuqaalkeena inta ayaan kusoo gabagabeynayaa mar kale waxaan kaga tagayaa inaad subscribe dhahdo like share muuqaaladeena oo mahadsantihiin